السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان نقطع ولا يسوى شكرا جديد داوديال عاوي أما ما انتبهوا هندين هنا أرين أمور بدن وحنون بدن سبق سنتي قبضان وهاي كسبان تاهي دالك الصومالية خاصة مجالة مقدشو قبض هو شقدون وها أي دونتي شقدي مركي أي دونتنا وها أي لسه كلنتي أرين وفالحن وقف والبو صومالي أما قف والبو إسلام وكدن قضي أرنتا waxa ay tahay gabadhan magaceedii iyo wajigeeda waa la qariyay arrimo amni darteed gabadhan jaamacad ay waxay ka doonatay shaqadii markii ay doonatay arrin ay la soo kulantay arrintii ayada ayaa nooga faalo doonta sida ay wax u dhaceen iyo sidii wax lagu soo yiri marka gabadha waa family oo aaba ay qabtaa ilmo ayaa la dhashay bal aan dhageysano gabadha iyo waxa ay la soo kulantay ayni ma ahan magaceeda saxda ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho iyada iyo aabaheed kaas oo ah waalid waqtigu uu ka hiiliyay wax dhaqaalahana aanan haysan si gabadhiisaan yar ay horumar u gaarto iyadoo ka duuleysa horumarinta nafteeda iyo tan waalidkeeda waxa isku dayday inay shaqo u doonato dhowr xarumood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jaamacado hoteelo iyo shirkado balse arinta la yaab kale waxay noqotay hoteelo iyo shirkado saad ka maqlaysaan warbixinta intaba ay ka doonato waa laba jeer ayay wax ku dhacday sirq balse ilaahay waa ka badbaadiyay labadii jeer in gabadhan lagu dirqiyay in baahida shaqo ee heeso darteed inay ku bedelato galmo aan sharci ahayn markii ay ka diidana waxa ay weysay codsigeeda shaqo haddaba ha inooga sheekayso dhacdada koowaad ay la kulantay gabadhan oo aan u qarinay wajigeeda ilaalinta sumcadeeda iyo khatar amni arinta ugu muhiimsan waxa waaye maalin ayaan ka doontay jaamacadaha ku yaala dalka Soomaaliya mid ka mid ah waxaan ka doontay shaqo nadaafad ah lagaga sheegay mid ka mid shaqaalooyinkaas qaybta u fadhiya shaqada dadka siiyo oo aan ka doontay lambarkiis gaar ahaan wuu isiyay oo wuxuu dhahay shaqadu way banaan tahay bishiina waa $200 haddii aad u baahan tahay nadaafad waa soo gali kartaa waa midaan jaamacadii markaa tagay wuxuu igeeyay jaamacad aysan micnaha oo laga qabanaynin jaamacad laga guuriyo oo wax micnaha yaalino oo dhamaatay oo igeeyay jaamacad ay mar hore laga guuray ayuu wiilka uu waday gabadhana uu geeyay waxa uu rabaa halkaas wuxuu ka soo bidoonane waxa noo sheegi doonta gabadha wuxuu idhaa meesha ka shaqeynayso waa halkan sida loogu shaqeeyaa dhaa meel micnaha uu wado bus waaye oo mar way ooynaysaa gabar daayar waa 19 sano jir waxa uu saas u galayo jaamacad laga guuro ayuu shaqo u geeyay jaamacad aan la joogin yaa qofna ma joogo waa asaga iyo gabadha oo kaliya ilaahay ayaa badbaadiyay subhanahu wa ta'ala gabadha balse maxay la kulantay laga guuray mana macnaha ilama ah meeshan in shaqaale loogu baahan yahay sidee macnaha qof ma joogin cid leed aniga asaa joognay anigoo marka cabsanaya ilbaabka galay asiga wuxuu idhaa soo gal waa halkan oo idhaa markaas aan dhahay halkan qof kuma jiro waana meel oo wasakh ah qof oo macnaha mar hor ugu dambeysay waa sida u gala oo nafsideeda ku aaminaa markaas oo idhaa horta adiga shaqo ma rabtid aad horta soo galba hadaa cabsanaysid macnaha waaba iska bixi kartaabo fahmi kartaan marka gabadhu waxay ka wado shaqo kuma hay okay anigoo sida soo cabsanayo salii nabiga afka iskaaga qabsada oo ilaahay garabka macnaha garab weydistay oo waan galay kadib markaan galay oo wuxuu idhahay 3 qol wuxuu ii furay oo eber oo baaba oo ii furay 3 qol wax ma ku jiraan hal xabo kuma dhex jira dhexdooda wuxuu rabaa 3 qol gudahooda in uu gabadhan wax ku subiyo balse ilaahay ayaa badbaadiyay oo gacanta Allah ayay ku jirtay haye nowad kadib oo idhaa waakina meesha ka shaqeynayso waa halkan nadaafada ay ka qabanaysid okay aan walaalkayga aada uu mahadsantaa dhaa shaqada maadaama ICC aan dhahay okay markaas sidaas u soo baxnay oo aan imaanay qaybtii maxay dhahaan banaanka u soo socono markaas oo ilaahay istaag ay abaayo maqashaan waleena istaag ayuu dhahay waa soo baxeen shaqadu way aqbashay wax walba okay noqdeen balse asaga dhagar ayuu wataa dhagartiisa maxay tahay
kole wuxuu dhahay horta shaqada waan ku siiyo dhahay bishiin waa $200 laakiin adig wili imaanan iga gaarbixin oo idhaay maxay tahay na garbaxa sheegaysiisa dhahay shaqada si walaaltinimo ii siisee waxaana ku dareys maxay tahay kadib uu idhaa garbax waa dareemi kartaa codsi iga tahay abaayo ina ii fududeysaa rajeynaa codsigeyga maxay tahay waxaas la fududeynaayo gabadha waxa ay soo doonatay shaqo waxay u imaatay shaqo wuxuuna shaqada lagu qabanayo waxay tahay $200 waa nadaafad shaqadii gabadhi waa ay ogolaatay balse asaga ayaa soo rogaal celiyay yidhi abbaaya iga garbax iina fududey bal waxa ay fududeynayso inay fududeyso rabto maxay tahay bal gabadha ayaa noo sharaxayso ina iisii sheegtay soo kama fiicnaa dhaa codsigaaga haddii lacagta ayaa dhahay diyaar waa markaa shaqada bilaabo bisha ugu horeyso intaa iisoo raadisay waa kuu jiraa waa ku siinayaa fahaya gabadha waxa ay mooday u qaadatay in lacag uu wiilka weydiisanayo balse arrinta lacag ma taagno ayadu waxay tiri lacagta aan shaqaysan doono ayaa qayb kaaga siinaa qaybta aan shaqada igu soo raadisay balse arrinta sidaas way ay ka bedelan tahay si kale ayay tahay arrinta gabadha halkaas ayay moodaa waddo toosanay ku socotaa balse wiilka ayaa walba qaldan ku taagan balse waddada qaldan maxay tahay markaasoo idhahay ma oho dhaa lacag inaadan lacag haysan waa ujeedaa laakiin wax muhiim ah haysaa waxaas muhiimka kaa codsanaya inaa isii sidoo idhaha maxay tahay waxa muhiimka ah qof walba bini aadama wuu fahmi karaa wax muhiima ayaa haysaa waxaas muhiimka inaa isiido oo waxa muhiimka iska simiyaa dadka mase sharci loo soo maraa jiro balse aan idinkaga dhicine noo sii wada waan dareemi kartaa okay haddee sidaas taa mayaan dhaa maribiyaan dhahay waxa muhiimka maxay yihiin ayadaa noo sharaxayso subxaan allah muhiimka waa dareemi kartaa wuxuu idhahay maadaama gabar tahay oo anigana micnaha wiil dhalinyaro aan ahay waxyaala lawaankan waa ogtahay uu dhahay micnaha waana idareemi kartaa oo dhahay inaa micnaha ii fududeysnaa rajeynaya waxyaalaha micnaha waxaa ka mid ah inaa micnaha aan wada galmoon amis micnaha waxyaala aan sameyno subxaan allah subxaan allah subxaan allah waa gabar soomaaliyeed da-deedu waa 19 jir waxay shaqo u doonatay jaamacada ku yaala magaalada muqdisho qeybo ka mid ah sheekadan ayay la kulantay keligeed miyaa mase 2,000 oo gabar soomaaliyeed ayay arrintan ku dhacday waa gabadhii ugu geesisaneyd ee ka hadasha falkan foosha xun ee loogu geystay waa halkii gabar oo keliya ka hadashay inta aamusan oo silent ah ayaa ka daran subxaan allah nabad haddii aa raali ka tahay shaqadan diyaar waa beri baa soo gali kartaa sidoo kale waxaa jirta dhagar kale oo ay la kulantay gabadhan laakiin ugu dambeyn ka badbaaday maalin waa dhagar kale ay la kulanto gabadhan soomaaliyeed bal maxay tahay dhagarta kale maalmaha ka mid a gabadha shaqo ka codsaday gabadhii marka waxay igu dhahday hoteelkaasa shaqo ka banaan wiilkan lambarkiisa ku siina wiilkan waco okay gabadhii markaan wacday oo lambarka i siisay wiilkiyaa micnaha wacday kadib wiilku wuxuu idhaha waa runteed qofta kuusoo sheegtay shaqo bay ka banaan tahay haddaad soo gelaysid adiga waayo igu dhahay kadib markii oo sidaas igu dhahay waxaan dhahay bishii waa imisaa dhahay $400 u dhahay marka $400 i dhahay aad ugu farxay oo waan micnaa aad farxadeeda lama soo koobi karo oo waxaan dhahay maanta maasha allah oo ilaahay kuu soo warmay oo bishii $400 hadaa qaadanaysa nadaafad aad wallaahi nolosha uga iyo nolosha gurigiin ugu buuxsan kartaa shaqa hesha ayay istiri $400 magaalada muqdisho markii looga shaqeynayo waa lacag fara badan haddana meel nadaafadan laga shaqeynayo balse dhagar ayaa weli qarsoon aysan gabadha ogeen meel nadaafad ah oo $400 laga qaadanayo macquul maaha balse ayada way faraxday maxay tahay marka dhagarta qarsoon kadib markii sidaas dhacday wiilka wuxuu idhahay waxaa lagaa rabaa idea ku gashid meesha iyo waxyaala oo damiin ah aa lagaa rabaa oo idhahay okay insha allah waa soo raadin doonaa dhahay shaqada laakiin qofbaha iga siinaa dhahay aniga aad ugu baahanaa dhahay wiilka wuxuu ogaaday marka inaan shaqada aad ugu muhiimsanayo oo duruufana i haystaan
wiilku wuxuu idhahay abaayo dhaa horta ana shaqale i weydiisiyo dhaa macnaa wixina ima weysii weydiino dhaa meesha laga sameynayo sida akhbaarta ay tahay waxaan u jeedaa dhaa qof oo macnaa hami leh oo inaa shaqaysato oo daacad u tahay u jeedaa oo idhaa macnaa dad badanaa jiraan oo sidaan oo kasii baxeen oo dhaa waa loo sii digay gabadha waa loo sii digay waxaana loo sheegayba in gabdho badan ay meeshaan ka tageen ay shaqadan ka qaban waayeen balse ayada ilaa hadda dhankaas uma tiirsano ayada waxay ujeedaa lacag qoyskeeda ay ku maarayso ilaa hadda mayse ujeedo waxyaalaha laga cararaya isha mayse saarin balse wiilka hore wax buu dhaamaa oo runta ayuu gabadha u sheegay haddii aad gabar tahay meeshaan iskaga tag sharaftaada ayaa shaqadan ku dhumayso yaana idinkaga hor dhicin maxay tiri okay shaqooyinka waxaa ka mid oo dhahay oo la qabanayo oo dhahay oo waxaa jira nadaafad waayo oo dhahay laakiin haddii micnaha soo heshiiso $10 aad soo gashid oo shaqada nadaafadda oo hoteelkan ka shaqeynaysid waa mara mustaqbalkaada meesha ku ba'ay waa mar mustaqbalkaaga oo meesha ku ba'ay runtaa loo sheegay gabadha kii hore wiilkan waa uu dhaamaa subxaan allah oo maxaa ka mid ah dhaa in macnaha oo markaa oo macnaha qolka soo galaysid waa qolala aad hagaajinay aan nadiifin qofa biyo u keenin nadaafada haysa inta laga taabto gadaal haga soo madax xabadka laga taabto kama hadli kartid oo idhaa wallahi waa arrin aad u xun shaqada markaad imaato oo aad dhiigaagiyo wax walba aad la imaato haddii aad soo gasho oo gudaha hoteelka ogow wax walba waa open haddii horey lagaa soo maro haddii gadaal lagaa soo maro haddii xabadka lagaa taabto haddii lagu gacmiyo wax aad ka hadli karta ma aha lacagta faraha badan arrin ayaa ku hoos duugan marka maxay tahay marka dadka suubinayo ee gacmeynaya ubaxa Soomaaliyeed hablihii Soomaaliyeed kuwe ma kuwa dalka ku sugan mase kuwa dibadda jooga bal aan aragno oo sidaas yeelay marka waxaa yeelayo dad oo wuxuu dhahay dibadaha ka imaadeen iyo dad Soomaali oo macnaha oo dhaqankii ka tageen oo dhahay oo gabdho badan sidaas oo kale ku hayaan oo aanan ka hadli karin oo dhahay kuwaas aan maanan keenin laakiin shaqada adaa macnaha aan ku keenuya oo dhahay marka wuxuu dhahay lama sidaas da ku gali kartid waakas oo macnaha gabarna waa taa oo dhahay haddii mustaqbalkaada barbtid oo dhahay in sidaas lagu taabto waxaa la wadaagsiinaa gabarta ها والله وداقي أو جبر أهيا ده هتيجي جبر تاي ما يوضح هاي مستقبل كذا إنه عيار مرة لكن مدة جرتا وحا أي تاي جبرنا كلية معها جبر صومالية جبر بدن واحد ماشي كشقينا هو صومالي كلية هوتيل الذي دلك كويالي هي جبيه صومالية ساس لور دخمة شركودي نرشودي جبر نمدودي لقوها لينا بس جبرنا واحد يكبد بعدش القار لا بدن oo intaan ka badan balse gabadhan kaliya ma aha kun kale ayaa jirta shaqooyinkan ku dhacay kana badbaaday media hor imaan noo wad walaasheen arrintan haddii meeshan soo gashidna oo dhaa waa mara micnaha oo xabadkaada laga taabto gadaal laga soo maray meesha ku ba'ay oo dhaa hataa oo dhaa had 400 ku shaqeynayo oo dhaa waxaaba lagu dhihi karaa oo dhahay dhacdadii koowaad ay la kulantay gabadhan haddii aan ku noqonno waxaa dib maalmo kadib u soo rogaal celiyay xiriirka ninka ka ah kaaba shaqaalaha jaamacadda ay ka doonatay shaqada kaas oo la wadaagay fariimo uu kaga dalbaday mar kale inay wada kulmaan una fududeyso galmada uu ka doonayay muuse ka harin wuxuuna ka doonaya waad ujeedaa waa arrin xaaraan ah diin ahaan dhaqan ahaan Soomaali ahaan meel walba